raxiim kusoo dhawaada saaxiibayaal sidaa thumbnailka aad kusoo aragteenba maanta waxaynu sharaxi doonaa cashar muhiim ah oo casharada ugu muhiimsan aan sodon karo waa cashar muhiim ah oo qof kasta ama gaar ahaan u sii muhiim qofka YouTube wax kusoo gudbiya ee creator-ka. Marka maanta waxaynu sharaxi doonaa bal sida thumbnailka loo sameeyo. qaabab kala duwan baa loo sameeyaa, laakiin waxaan isku dayi doonaa bal horta ugu horreyn sida qaabka loo sameeyo inaan isku dayno cidii aan garanayn marka ay ka faa'iideystaan dhammaantiin ay noo wada faa'iido ay noqoto. Marka waxa weeyaan muhiimadda uu thumbnailku leeyahay, thumbnailku waxaa la yiraahdaa sawirka yar ee ka horeeya Allahumma salli ala Muhammad ee ka horeeyay muuqaalka ayaa kaas la yiraahdaa thumbnail. Marka kaasaynu insha Allah ta'ala aynu sharaxaynaa waxyaabahan ku sharaxaynana waxaa ka mid ah in doonayna ku sameynaa application la yiraahdo Pixlab oo ah application-nada ugu wanaagsan ee wax lagu edit gareeyo, sticker-rada iyo logo-yinka waxyaabaha la midka lagu sameeyo. Kaasaynu ayaynu ku sharaxi doonaa haddii la yiraahdo. Marka soo dhawaada si fiican u daawada. Application-kan gudaha u galeynaa. Application-ku waa kan page-kaas ku soo baxaya. Marka waxa weeyaan tusaale ahaan oo kale marka doonayso halkaas aad soo furnaysaa saddexda dhibcood si aad u soo furato thumbnailka size-kiisa saad u hesho. Waxaad leedahay image size button-ka yar halka button-ka yar baad soo furaysaa square profile picture YouTube banner YouTube thumbnail-ka aad soo dooranaysaa okay baad siinaysaa. Marka waa sida warqadii size-kiisa saad soo dooratay waxa kale aad sameynaysaa waxay tahay inaad tagsiga aad leed garayso tagsiga meesha ka saaraysaa. Marka intaa waxay noo xiga waa inaynu background-ka aynu ku sameyn lahayn aynu soo qaadanaa. Background-ka aynu ku sameyn lahayn thumbnail-keeda waa inaynu soo qaadanaa. Waxaynu sameynaynaa halkan aynu taginaa bartaas aynu taginaa halka import ku qabatay ayaan ku dhufanaynaa. Import halka ay ku dhufantay ayaan ku dhufanaynaa. Marka sawirka aad doonayso inaad ka sameysay waa inuu meesha ku jiraa halkan aad tagaysaa. Allahumma salli ala kaasaan doonaynaa ka sameeyo inta loo kale profile lagu dhigo. Markay soo baxdo waxaad leedahay stick baad leedahay sidaa markay tahay hadaba waxaad tagaysaa relative markay tahay waxaan sameynaynaa Allahumma salli ala Muhammad inaynu sawirka aynu meesha aynu leekaysiino waxaad tagaysaa meel la yiraahdo relative size halkaas aad dhamaystiraysaa saas ku leekaanaya. sidaa markay tahay halkaas aad tagaysaa waad xidhaysaa sidaan kaaga dhaqdhaqaaq aad qufuleysaa. dabeetana waxaad sameynaysaa horta intaan qufulin waxaad sameynaysaa capacity-ga bahalkan ayaan lagu gaabinayaa. ayaan gaabinayaa Allahumma salli ala Muhammad. Markaasaan xidhayaa markaan xidho waxaan sameynayaa hadaba sawirradan doonayna soo qaatay ayaan soo qaadanay. tusaale ahaan weliba waxaan soo qaadanayaa number aan background ahayn aan background-ka soo saaray ayaa soo qaadanay. sawirkaas oo kale ayaan soo qaadanay bilaa background-ka adigu anything sawirkii alla sawirka doontay aad soo qaadan kartaa. marka waxaad leedahay sanaad leedahay saas oo kale ayaad sameynaysaa. marka waxa weeyaan kaas marka halka ay imaadana insha Allah waxaad sameynaysaa kaana waad qufulinaysaa. waxaad sameynaysaa waxyaabaha kale aad sameynaysaa halkan aan ku noqonayaa. markaan ku noqdo waxaan tagayaa bartan sawir kale bilaa background aan soo qaadanaya. Sheekh Mustafa ayaan soo qaadanayaa. Sheekh Mustafa markaan dhigayaa saasaan u dhigayaa thumbnail ma aragtaan isagana saan loo qufulayaa. marka halkan sidaa markay noqoto tagsiga ayaan tagayaa. tagsiga markaan tago halkan aan tagayaa halkaas baan dhiganayaa saan ugu soo baxayaa sidaan marnaya. salaam Sheekh Mustafa aan ku qorayaa mawduuc muhiima aan ku qorayaa oo kale okay baan leeyahay. hadaba markay saa tahay halkan aan tagayaa iyada laftirkeeda bartan aan tagayaa.
horta kalarka waa kanoo kalarka nooca doontaad ka dhiganaysaa nooca doontaad ka dhiganaysaa nooca doontaad ka dhiganaysaa laakiin cadaankan u daynaya hadii la yidhaaho waxaan sameynayaa ab halkan fartan halkan laga soo fartan nooca doontaa baad ka dhiganaysaa marka fartan nooca laala nooca doontaad ka dhiganaysaa nooca doontaa baad ka soo diraysaa nooca laala nooca doontaad ka soo diraysaa farta waa tan laala nooca doontaad ka soo diraysaa markaan tusaale ahaan kale tanaan leh saasaan idhi اللهم صل على halkana waa t background yani background baad sameynaysaa background baad sameynaysaa tusaale ahaan saana waad oran kartaa asaasa kalaaman oran karaa saasa kalaaman oran karaa saano kalena waan oran karaa waan gaabin karaa saano kalena oran karaa saano kalena oran karaa garat marka taas waa taas saasaan oran karaa adigu saada qurxin ka soo wada qurxsanaysa laakiin waxaan ku barayaa basically waxaan sidaad soo keeni lahayd ma ku barayaa marka taasna waa sidaa marka calaashan thumbnailkii اللهم صل على محمد thumbnailkii waa ka thumbnailkii waa ka runtii saasaad ka dhigaysaa thumbnailka markaa saasuu yahay anything nooc walba noocaas aad ku sameynaysa marka thumbnailka waa kaa اللهم صل على محمد barnaamijkeena intaasuu yahay wixii dam haddii ilaahay thumbnailaduna waxyaabaha ugu muhiimsan ee youtube markaad wax kusoo gudbinaysa weeyaan marka inaad barato oo basically aad u barataa baa muhiim ah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa fadlan haddaad muuqaalka ka heshay يعني واجبك كقبصة هديانة كهلا فرنتي واتسكت أفكارته وما حسنتي